بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مهد waxaa iska leh Allah subhanahu wa ta'ala caawa suuqa ay keenay madashan quruxda badan dadkan wada wajiyada quruxda badan leh ma sha Allah bacd Allah waxaan u mahad celinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladan aan caawa raasiyada isugu nimid daahfurka buugga danjire oo caawa marti noogu yahay walaalkeen ambassador Maxamed Ali Nuur ila soo dhaweeya insha Allah ta'ala ila soo dhaweeya inuu xafladda noo furo noo barakeeyo كلمتيس وكسو جديو هسو وقتي سقالي الناس وهري الإمام دكتور شيخ أحمد نور فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو هوري وحرب إن الله سبحانه وتعالى كل جن هاد علينه وحرب وحير إن كهد الله لبا قضب. labada qodob oo ka dhaxelay labadaba buugan danjiruhu uu qoray danjire daljire sacalta safiir maxamed nuur cali americo buugan uu qoray baan rabaa inaan laba arrimood iga soo jiitay aan ka sheego buuga hadda maana meesha ka helin horay baan u watay habeen horena waan ku dhafray labadii baan ku gaadhay sidaan u aqrinay runtii wuxuu ii soo jiitay ilaa aan ama dhameeyo ama aan u dhawaado inaana ka seexanin intii muddadan aqrinay laba qodob baa marka aan rabaa inaan ka hadlo mid danjiruhu buug markii la yiraahdo nin siyaasi uu qoray danjira waa siyaasi mujtamaca bulshada meesha uu jiray marka uu horaba loo qaadan safiirku waa siyaasad weey laakiin buugga waxa iga soo jiitay dhanka siyaasadda ma ahayn waxay dhanka bulshada iyo wax ijtimaaciga la yiraahdo iyo bulshada in wax loo qabto ayay ahayd waxa iga soo jiitay qisas iyo arrimo ku qornaa arrinta runtii ugu muhiimsan oo rabo inaan xuso habeen dhaweydna aad ii soo jiiday tasaffuc markaad buugga ku samayso waxa ay joojiyay oo istaajiyay qisada ugu xanuun badnayd oo ku dhacday ambassadorka oo ahayd dilkii gabadhiisa Yaasmiin la dilay waxay ahayd saqiir 18 bilood jirta waa farad baa la markaas oo kale islaamku wuxuu yaqaanaa ceelaliyo waa qof ka horeeya dambi male reerkeeday sugi insha Allah ceelaliyo idin tahay meel fiican bay ku aaday taas niyada ayaad insha Allah ta'ala marba ku qabowsan ayad ba indhahayga joojisay fabima rahmati min Allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك
laba boqol iyo saddex bejkaas fiiriya laba boqol iyo saddex qofka haysto ayaddaas markaan arkan isha ku dhuftay fa bimaa raxmatin min allaahi linta lahu baa waxaan isku xidhay isla markii qisada ku dhacday safiirka oo aada u kululay oo ayd gabadhiisii oo yar oo curdan ah oo saqiir ah oo hortiisa lagu dilay ninkii dilay inuu arkay oo ay wada fadhiisteen uu u sheegay uu yidhi gabadhaadii anaa dilay oo wuxuu sameeyey markii hore garan waayey oo ilaahay waafajiyey inuu wiilkiina cafi ka dalbado isagiina uu meeshii ku cafiyey 5 daqiiqo gudahood aayaddu marka waa maxay macnaheedu fa bimaa raxmatin min allah haddayna jiri lahayn raxmad ilaahay qalbigaaga geliyey taasoo ah midda linta lahum aada ugu dabacday bimaanaa isaga aada wiilka ugu dabacday waxa ku celiyey oo ku dabciyey oo ku furfuray waxay ahayd raxmad ilaahay xaggiisa ka timid oo qalbigaaga geliyey marka haddayna saa aada heli lahayn ummaddu way kaa kala rasuulkii arrinta ku socotay laakiin munaasabada u fiirso maxaa laga dambeysiyey facfu canhum iska cafi baa rasuulka sal alla alay slam isagana wiilku cafi buu yidhi waa cafi istikfaar u weydii baa laga sii dambeysay oo dembi dhaaf qisada oon maanta mar dhegaystay oon meel ka dhegaystay isagoo mar hore ka hadlay safiirku wuxuu yidhi mar walba waan dembi dhaaf baan ilaahay u weydiiyaa runtii markaan hadda stageka imaanayay waxaan wax yar ku sii sumayay walaalkay iga weyn oo baarkin raasanaya marka waxaa la yidhi meel hadduu libaax soo galo maxaa la yidhi looma joogayso marka wariye xabeeb hadduu yimid oo jey meesha waxba ma yaalaan marka insha allahu tacaala ila soo dhaweeya xabeeb oo halkan kasii wadi doona insha allahu tacaala walaalkay xabeeb ila soo dhaweeya insha allah saaxiibkii oo jey mudduu ku noolaa waddamadan objection markaan inuu ku gudbay ahayd waa idin salaamayaa dhammaantiin mar kale waxaan u malaynayaa galabtu waa galab aad iyo aad u qurux badan ka duwan galbii hore waxaa inala jooga oo marti inoo ah yaanan marti dhihin oo goobta anagula sugan walaalkeen danjiri ama ambassador sida qofba u yaqaano maxamed cali nuur oo loo yaqaano cali america wuxuu soo maray magaalooyin fara badan ama dalal fara badan hadday noqon lahaayeen africa asia yurub iyo weliba qaaradda north america oo aan malaynayo inay tahay meeshii shanaad oo uu maanta nala joogo goobo kaloo fara badan ayuu u kicitimi doonaa haddii ay biidmo barnaamijka ama haleyska u socdana wax kale ma ahan fundraise ma ahan siyaasad iyo markaa inuu isu taagayo xil ma ahan waxa uu isagu markaa baadigoob ugu jiraa sidii uu caawin lahaa bulshada iyadu markaa caawinaadda u baahan ee Soomaaliyeed ee la iska ilaaway ama la iska helmaamayba inta badan Soomaaliya khilaafaadkeed waxaad ka warheshaan boni 5 iyo reer hebel iyo state hebel laakiin inta u baahan caawinaadda hadday noqon lahaayeen dadka iyagu markaa naafooyinka ah dadka iyagu markaa aragga aan u dhalan iyo kuwa wali iyo markaa dhagoolayaasha ah ayuu wuxuu ugu talagalay barnaamij oo markaa ugu hibeeyay buuggiisan oo inta badan aad ka warqabtaan dadka qorayaasha iyagu dhaqaalaha ay ka sameeyaan buugaagta hayeeshee waxa uu isagu markaa ugu deeqay in ay bulshada wax ku dheefaan isagoo markaa u hibeeyay gabar isagu uu dhalay oo si xaq darro ah looga dilay isla markaana intiina badan aad daawateen qofkii dilay isagu iska cafiyey taasoo iyaduna ah mid lagu ammaano ambassadorka barnaamijka haddaba maanta aynu u joognaa waa uu ka duwan yahay kii buugaagta hadday noqon lahaayeen inaan su'aalo ka weydiino oo iyaduna ay dhici doonto hadday noqon lahaayeen in la idiin saangareeyo oo iyaduna ay dhici doonto haddii ay biidmo haddii ay noqon lahaayeen inaad idinku markaa aad bigjaro la gashaan ama aad xusuus ka reebataan oo iyaduna ay dhici doonto haddii ay biidmo ha yeeshee waa uu ka duwan yahay waa barnaamij markaa loogu yagleelayo ama lagu taageerayo Yasmin Foundation oo isagu gabadhiisa ah dhaqaalihii ka yimaada buuggaana jeebkiisa uusan ku noqon doonin inta aan idiin soo sheegay lagu caawin doono haddii Allah uu dili ogolaado waxaan shalay mar aan sheekaysano uu ii sheegay inay fureen iskuulkii ugu horeeyay oo isagu markaa ah hoose dhexe oo iyagu ay ka fureen magaalada Muqdisho magaalooyin kale oo Soomaaliyeedna isagu markaa uu damacsan yahay waxaan dhihi karayaa he's one of the best marka loo hadlo siyaasiyiinta Soomaalida soo maray
ama sida fikirkiisu uu yahay waxaad markhaati ka wadateen sidii ugu dagaalamay safaaraddii Soomaalida ee Nairobi oo iyadu 95tii ka baxday gacanta Soomaaliyeed isaguna ahaa ambassadorkii ugu dheeraa oo isagu fadhiyay waddanka Kenya caasimadiisa Nairobi waxaad sidoo kale ogtihiin sida marka ay qafaalada ama dhibaatooyinku ay ka dhaceen Kenya sidoo isagu ugu gurmaday dadka Soomaaliyeed isagoo markaa diyaarad qaas u qaatay sidii ugu soo arki lahaa dadka Soomaaliyeed indhihiisa isla markaana kasraan iyo goobo fara badan oo dadka lagu xareey uga daba tagay qaybtii ugu horeysayna isagu ka dajiyay magaalada Muqdisho waxbayaan hadal idinku daaleen waa ambassador Maxamed Cali Nuur America ku soo dhawow magaalada Seattle Washington markale waxaan markaan u yeerayaa the mom of old uma baahna inaan magaceeda ama aan introduction idinku sameeyo balse it's honor inaad ila soo dhaweysaan waa madaxa Somali community the city of Seattle Washington Mama Zahra Bashir السلام عليكم هرتا آدي هذا ومهسنتهين هدي إلهي ويراهن وعاوم شرف إيو بقعدين نوجتها إنه ما أنتوا ولا الكينا محمد أمريكا ونلا جوجو مركا وحن آد وقفر حسنا هاي أنت الصومالي عاو أيقو بيزة وقتي قد بسوق تجين يمادين آد ديكم مهدنا قايا ميديكال وحامش أنا قوم مهدنا قايا نمبر 1 خير الله سيو هو إذا معنا ميشان جوكت فاضم حاشب أو فرصة بحن عاوة ميشان وهلي خير الله سيو الشيخ أحمد إدمان أنت السيارة جوكت إنه هو إذا يوسو دعوين أنا إسبتال كل جرو مركز دمانتين وحاد الله كل إلاب أيا إذا كوكو مهدنقي دعادين إنه إلهي وأنه أقبلي عاون هو إنه ميشان اللي جوكتها marka saas iyadoo ay tahay hadan waxa la reer siyaaro waliga qalbigayga ku jirtiin marka waxaan farxada inaan la soo dhaweyseen walaalkeen Maxamed America oo anagana muddo badan oo Soomaali iyo intaas oo diaspora oo noo soo maray hadan anaga siyaaro dhinacaas marka la Washington DC ilaa oo siyaaro Washington ay kala fogtahay oo noo soo maray aadan kugu mahadcelinaynaa welcome to Somali community abroad thank you so much Abdisalaam Usman Yusuf oo isaguna mid kamid ah dadka iyagu u dhaqdhaqaaqa Soomaalida magaalada Seattle Washington ayaan markaan u yeerayaa Abdisalaam soo dhawow marka hore dhamaan ummadda sharafta leh ka soo qayb gashay intii qaban qaabisay iyo danjirahaba waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan kamid ahay dadka degan magaalada Seattle county King County state-ka Washington waxoogaana waa joogay magaalada waxaan markaas sharaf leh oo kaliya laaba rabaa inaan ku iraahdo mudane Maxamed Cali Nuur America soo dhawow magaalada Seattle iyo gobolka Washington waxaan markaana aan u yeerayaa Cali Sheego oo isaguna kamid ah dadka isagu sida aadka ugu dhaqdhaqaaqa ama sida aadka loogu yaqaano magaalada Seattle Washington in muddo aan ku noolaa هذا ريفتيشن ويشجع ذاتك ديار الدجور رئيس مجال أنت ما دينه كمدها. Thank you حبيب. السلام عليكم. Hello Seattle. يورمم. And أوجد أن المجال أن قتي مجال أو سمعنا ترسته. sida noogu imaanaan madaxdii Soomaaliya oo aad ugu dambeysay Maxamed Cali America horta intii hadalkayga aan bilaabay horta maxaa rabaa inuu mahad celiyo Mama Zahra markasta oo arin loo baahan yahay either short notice ah noqoto ama long term inay xafiis meesha u furto community-ga soo dhaweyso marka mahadsantihiin Safir reer Seattle هذه وكدو ونحي ذكر رير مينيسوتا وأخلقي ونحسن إيطالو إنه كروينيا أوجو مركز رير سيالو ما ضد عادي عاد صومالي ما أوجو وعدك واي ما هن رير مينيسوتا أو قبط مقلسي خيال بعضنا لكن سيالو حقول ما لسه صومالي نمو إس الروسي عندنا إلهي نو بركي قبل الدمر بدن صومالي أو ديكيرليا صوب أحد very strong أو وحيد لوجو بعض مركز قبطان
marka I'm sure wixii deekar meesha jooga caawa u sheega Yasmin Foundation kaalmay u baahan tahay. All right, thank you. Welcome to Seattle. Ismaaciil Warsame Abu Zaid oo isagu nooga yimi gobolka Oregon magaalada Portland oo isagu maanta nala jooga. Abu Zaid. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهتسند دمان مهتسندين برشة الصوماليات قبل كواشنطن جارهان مجال سيارة وحفلة آدي وقرحان وأنجع لها مركز إنكستون أوريغون دجنا هاي مركز تواعي ماذا سياتل والله سبب تواعي ماذا وحواي community قرحان community دتك كده موقضة لقفانو آتهين marka sidaas awgeed dad fara badan oo saaxiibo ah meeshan ku leeyahay aan rabo inaan magac sheego hadii aan ubax warsame iyo sidoo kale OJ oo ayaga markasto u taagan inay isku xiraan bulshada oo ma ahan kaliya reer Seattle bas mu shaqeeyaan reer Mareykan bas mu shaqeeyaan adduunka dhan ka shaqeeyaan marka waxyaabaha marka oo igu xiraay inta igu qasbaay ay kamid yihiin sidoo kale masjidka Abu Bakar waa meesha stop ugu horeeyo aan istaago sidoo kale aabahay ayaa jiro oo markasto baxaayo wuxuu jecel yahay inuu ka baxo Seattle maxaa yeelay direct flight oo waxay qabtaa meelo badan marka imaado wuxuu dhahay masjidka xilligiisa nagu aadi salaada markastana waxaan tagnaa si kasto oo wax kasto jiro masjidkaas waxa uu tagaysaa markastaba jamaaca fiican oo ma sha Allah waa ayadana waxyaabaha lagu faano waxyaabaha kale oo aan maxay ahayd ku amaanay magaalada Seattle waxa kamid ah moolal qurqurxana hadda samaysateen oo hadda aan dadka xitaa waxa dad ajnabi ay weydiiyeen waxay dhaheen ii sheeg maxay waa u sheegay marka dad badan oo xitaa oo good feedback soo siiyeen oo Soomaali ahayna xitaa jirto markii intaan ku soo noqono inkastoo oo aad igu xadeen oo aanan u soo diyaar garoobin hadalkan laakiin waxaan rabay dad fara badan oo asxaab ah jiro oo inta aan isnaqaano oo iswaji naqaano dadka badan social media iska naqaana marka kulligiin intii salaantay inta mask gashanoon si fiican wajigooda u garanin kulligiin waa wada salaamantihiin waxaan rabay inaan sidoo kale u mahadnaqo ambassador Maxamed Cali Nuur America oo ah qof aan wallahi in 10 sano ka badan aan aqaano waxa aan ku bartayna ay tahay kaliya shaqada iyo hawsha u hayo umada maantana Ilaahay keenay in uu noo yimaado insha Allah waxaan sidoo kale aan ka codsanayaa meeshaan uga codsanayaa sidoo kale inuusan Oregon dayacin oo Oregon yimaado insha Allah marka balantaas si gaar ah ugu qaada haddana waxa si public ah u sheegaya insha Allah waa ku sugeynaa gobolada kale ku dhiman insha Allah sidaas oo kale ku sugayaan marka sidaas waa mahadsantihiin iyo soo dhawaad si fiican looga yaqaano in muddaana ku noolayd meelo fara badan iyo goobo fara badan isugu nimidna wacdar lama ilaa wana ka dhigtay waa Maama Xamdi Cabdullaahi Maama Xamdi soo dhawaad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وإذ سلامي دنيارو ماموين يويل سخاص يسيقال بوحان وسلام يا شيخ أحمد نور شيخ يغا بارك الله فيك أد بانكوش الله أد بانكوش الله وحان سود وين يا ولالكين محمد علي أمريكا وإنه دراديس يسقون من هالكان سفر دير سوق على سيديس ماما زهرة تري nasiibkaas ma lihin ay inoo ku yimaadaan dadku oo safar dheer inoo soo galaan badiyaaba khaas ahaan anigu fanaanadna waa iska ahay oo qalbiga waa ka jeclaa dadka heesoo xataa kuwa ma arko oo waxa iraada waree dhahay maxaa nala ku nacay la fogaanta layna ku nacay marka waa nasiib aan dheernahay dadka markii uu Cali America oo kale inoo yimaado waxaan leenahay tixgelin gaar ah ayay leedahay imaanshahaagu waana kaaga mahadcelinaynaa Ali Roble waa muusikijana waa oday hore dhalinyaro cuslaatay ayaa markaan aan u yeerayaa bal inuu isaguna goobta soo istaago bulsho ma sha Allah in la xasuusiyo way fiican tahay wanaaga runtii marka hore aad iyo aad ugu masayahay runtii dadka meesha ka yimid qayb weyn ka qaateen gabdhaheena walaalaheena iyo Sheekh Axmed iyo ambassadorka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan ku soo dhaweeyno ambassadorka meesha aan magaaladeena farxad weyn bay noo tahay dad oo waajibna saaranay tahay haddana marka u fiirisid dadka meesha jooga dad Soomaali weynta ku weynta waay runtii dad maaha oo hadda la yiri ama qabiil ku imaa ama waxaas ku imaa la yiri ma dad ayaga iskood isku yimid waay marka aad iyo aad u mahadsantihiin markaan aan u yeerayaa calan sidaa
magaceeda inaan sheego looma baahna calan sida soo dhawo ورحمة الله وبركاته وحن هل كان كسلام يا دمان كومنتيجا كسوق بقلي شركة قروح ضبضن لوجسوا دوين يودين شرها آد بان الدين سلامية وحن كارهان هدنا سي سلامية شيخنا شرفت ضبضن الشيخ أحمد نور جزاكم الله الخير إلى يحكو كراميو آخري الدنبا وحن سلامية ولا شيء سهرو iyo agaasimayaashii halkan ka soo qayb galay dhamaantood oo maaragtay shirkan soo abaabulay sahro iyaduna u taagan Somali community walaashay Xamdi iyo Nafiso oo iyaduna barbar fadhida ubax iyo oojay iyo dhamaan rag iyo dumarba in alla inta halkan ka soo qayb gashay oo dhan waa idin salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh إلهي سبحانه وتعالى هنا ولالك وحن له قلبك هقبوجيو قبل سمري إيمانها كاسيو إن الله أنت لما تيردن أو أما إهل كودي لنتي أما هذا بعد أي لمن أيانا كل جود بسمري إيمان الله كوالسيو أنا ودون الموت سوغا نهاي وأنا لمن ينارون هانتي قفل بنا كل نبتداقة الموت غير دوي سوغيسا marka waxaan leenahay adigana qalbigaaga Allah ka qaboojiyo samri iimaan Allah ku siiyo sida maaragtay ta wanaaga ah oo aad dadkaaga ula garab taagan tahay oo ku qoran buugaaga dhexdiisa muuqaal iyo maqalba waxaan ku leenahay Ilaahay jisa khayr qabta ha ka siiyo hana wada dareensiyo nin kasta oo wax ka noqdo wadan kasta oo uu joogo ama Soomaaliya ha noqoto ama dalka dibadiisa ha noqoto marka aad iyo aad waxaan u leeyahay Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha isgarab istaagto Soomaaliya danteeda tii garata Allah ka dhigo ha loo wada istaago hana loo wada baraarugo aad iyo aad baan idin salaamaya hambaliyo iyo salaam baan kugu soo dhaweynaynaa welcome to Seattle community aad baan kugu soo dhaweynaynaa culimadeena iyo dadweynaheena iyo dhalinyaradeena iyo haweenkeennaba mar labaad iyo mar saddexaad ba noo soo noqo walaalkay qaali waan ku soo dhaweynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyadu barnaamijkan dartii uga timee Arizona oo iyadu maanta nala joogto goobtan bal iyaduna welcome Sumaya si ay laba eri halka uga tiraado Sumaya soo dhawow inta xooga mahad celinayaa Somali community Mama Zahra especially thank you so much so dhaweysay actually hadda magaalada u soo guura waa ku cusubahay reer Arizona ahaan jiray aabana buugana tan isoo sheegay xeraalaha guudka qaran ahaan jiray aadahayna saaxiiba inaad tihiin isoo sheegay qasab ilaa waa inaad tagtid ka soo qayb gashid and I'm very happy to be here kuma talgalina soo hadlo but thank you waxaan markan aan u yeerayaa Axmed Cabdille oo isaguna ka mid ah dhalinyaradii cuslaatay ee magaalada Seattle Washington runtii aad iyo aad baa umahadsan tihiin dhammaantiin ka soo qayb galay xafladan ugu horreyntii waxaan u mahad celinayaa marti sharafta noo yimid ambassador Alali Americo welcome to Seattle baan ku leenahay soo dhawow sidoo kale waxaan u mahad celinayaa runtii Sheekh Axmed Nuur oo dhammaantiin aad ogtihiin culimadeena aad iyo aan u taxgelino anigana saaxiib gaaraya oo maasantaa sheekh sidoo kale dhammaantiin oo ka qayb galay xafladan runtii Soomaalida waxay soo mareen marxalado aad u fara badan xilladii dagaalada kadib ilaa haddeertaan buugga uu qoray danjiraha runtii waxaad ka arkaysaa arrinta haddeertaan laga dhawaajiyay oo anigu jeclaan lahaa in weligeena aan ku fakari jiray soo ogtihiin Rwanda iyo Burundi waa dagaal baa ka dhacay Soomaaliya kaliya ma ahayn meesha uu dagaalada ka dhacay dagaalada sokeeye laakiin waxaad moodaa ilaa haddeertaan ummadda Soomaaliyeed in aysan u helin xal ay oo gudbaan dagaalkaas iyo dagaalka sokeeye soo maray marka fursadan ambassador ka haysatid waan jeclaan lahaa runtii inaan ka qayb qaato aniga laftiga shakhsiyan oo dib heshiisiinta ah ummadda Soomaaliyeed waxa ay ka mid tahay qof walba oo Soomaaliya in uu tixgeliyo inta siyaasi aan arkay ilaa haddeertaan ma aan arkin mar walba la dhaaranay kitaab baa lagu dhaaranayaa waxay leeyihiin wax baan qabanaynaa waan ognahay intuu xaaladdu see noqontaa siyaasaddu waqti bay leedahay laakiin in laga fakaro jiilka soo socda wixii soo dhaafay in laga gudbo oo markaasna dadka gacmaha is qabsadaan foundationka ummadda tahay waxaan ku mahad celinayaa inaad ka dhawaajisid oo aad xoog aasaari runtii oo aan leeyahay not last but least Nafiso soo dhawow
عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan salaamayaa dhammaan madaxda Washington siyaaro Axmed Cirro u jeeda walaashay Sahar Bashiir oo iyada runtii aad noo qaban qaabisay mar walba oo xafladaha muhiimka iyo dadka qaaliga nagu ay noo yimaadaan Sahar thank you culayska aan ku saarno walaashay Xamdi Cabdille madaxdeena ah waa salaamayaa dhammaan wiilashii lacagtana halkaas fadhiyaan Xaaji Taaj lacag markaa soo xasuustaan Xaaji soo xasuusta walaalkay Axmed Cabdille Dictor oo salaamaya Maxamed Cali oo siyaaro dhammaantiin gabdhaha kulligood waa idin salaamaya Shamsi Yuusuf Bakiin Cigaal Ubax Cabdiraxmaan Oojey dhammaantiin soo dhawaad ambassador aadan ugu faraxsanahay inaa maanta noogu timaado meesha mahadsanid nafiso waxaa la soo gaaray guntii iyo gabagabadii barnaamijkanaga waxaa caawa lafdhabar u ah barnaamijkanaga ambassadorkanaga oo isagu markaa marti inoogu ah magaalada Seattle Washington nala joogi doona labadii maalmood oo tagteen nala joogay waxaa markana aan u yeerayaa balse ay markaa inoogu soo dhaweyso ambassadorka Ubax Warsame oo magaalada Seattle aad ku taqaanaan isla markaana ka mid ah gabdhaha firfircoon ee ku nool magaalada Seattle Washington Ubax Warsame soo dhawow Thank you so much and حبيب هذا ما سنتهاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ما سنتهين dadka ka soo qayb galay eventigan ama xafladan aan u sameeynay in lagu soo daahfuro ambassadorka buugiisa Danjire sharaf ay noo tahay annaga hadaan nahay reer Seattle Washington caawo dadka meeshan isugu yimid waa dadka mar walba ka qayb qaata wax walba oo arrimaha bulshada ku saabsan haday tahay leadership keena dadka leaders keena ah oo Maama Xamdi iyo Maama Sahro ay ka maaragtay lead ka yihiin de mar walbana dumarka lead gareeya marka ragga oo iska raali ahaada waa ogtiin arintaas ay mar walba waan ka hadlaa marka ma sha Allah caawo in badan ayaa maaragtay hadal badan baa la sheegay oo ku saabsan walaalkay Maxamed Cali Nuur Ali Americo waxaan ka fikiray maxaanan la oranin oon oran karaa waa ku sii dul fikiray moogta intaan dadka dhageysanay there was time waxaa jirtay markii ugu horeysay oo aniga anoo maqli jiray ayaa haddana waxaan follow gareyn jiray social media waa garateen hawlihiisa waa ogtihiin social media aad u isticmaalnaa marka waxaan arkay badda liido agteeda gabdho oo dhalinyaro ah 20 jiro iyo oo isku soo agsawreen ambassadorka uu dhex taagan yahay markaas waxay leeyihiin the sexy grandfather you know marka waxaan yiri I have to ina sheego arintaas oo la leeyahay he is the sexy grandfather waa hadal aan wali maqlin caaw inta dad sheego sugay ilaahu aan leeyahay hor oran inaan dhahay marka the last couple days I was watching him waxaan dhahay how he become the sexy grandfather waa ina u dhuur galo oo ina hado bal hay muxuu sameeyaa horta yeah you know he's in good shape and you know mashallah grandfather ma ku xumo you know marka waxa arkay ninkii oo dhahayo aniga habeenkii ma casheeyo waxa ma cuni kari waxa dhahay oh now I know that's why he's sexy America we are grandfather ka you know cashadii iska ilaalina meelii qadada la geenay dadku wuxuu leeyahay fish yar isiya kan igleexiye waxaan dhahay aha war cashar ha laga barto aniga waxaan ahay health coach I coach chronic disease patients marka always dadku waxay dhahaan ubax cagaar mar walba masawir cagaar ay meesha xoolo miyaana cagaarkii loo ninka cunayaaba ka faa'iideysta soo hala koobi gareeyo so that dadka meesha jooga hadhow markaad awooyaal noqotiin sexy grandfather sa u noqotiin idinkana insha Allah inta markaan kaftankii uga leexdo waxaan aad ugu faraxsanahay horta anigoo ku hadlaya magaca dumarka hablaha yar yarka iyo waaweenkaba Soomaaliyeed ee magaalada Seattle in aan nahay dad aad iyo aad mar walba qof kasta oo marti noo ah soo dhaweeya marba hadaa qaran u taagan tahay anigu calamada oo nooc ah ma aado laakiin qof ka socda arrin Soomaalinimo arrin guud waanu soo dhaweynaa si aan waliba caadi ahayn oo magaalooyinka kale ka wanaagsan waa lagu celceliyay caawa Sheekh Axmed Nuur iyo qofku noo yahay waxa u maleynayaa hadalku ma soo koobi karno Sheekh Axmed Nuur iyo qofku noo yahay waliba aniga si qaas ah ayaan waxaan rabaa inaan iraahdo Sheekh Axmed Nuur
thank you mahadsanid mar walba saa noo garab taagan tahay aad baan kaaga mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan mahadcelin gooniya intaanan u yeerin ambassadorka siiyo tiimkii soo abaabulay arrintan ka soo shaqeeyay oo maama Sahar ay ugu horeysay lead gareynaysay oo uu ku xigo OJ Dubo walaashay Bakiin Ali Sheegow yani laawaya Ali Rooble marka waa la badan yahay inta qaaska ah oo goonida ah iyo inta kale oo aanan laga sheegin of course kalkaal always wuu garab taagan yahay kalkaal meeshii aan anaga laga arko video aan leenahay waxa way kalkaal taagan gadaal oo dadka jecleen inuu la arko ma jecla laakiin kalkaal aad u mahadsantahay abo thank you so much marka inta ka soo tago haddana waxaan u yeerayaa the sexy grandfather magaciisa xataa ma sheegayo soo dhawow ambassador السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد وجحش شيء سمح لي كده بسوا. هرتي واحد على كربن مكان تعالوا وعين مركو ربونك للجبيا واي. إن وعن مركو أنا أجي على كلمة عليو كسوق كعاوة كسوق كسير حفظان دافور كبوجا إن ريل سيارل waxaan rabaa walaashii ubaxna oo sheego waa markii ugu horeysay aan imaado siyaaran laakiin ma naqon doonto markii u dambeeyay waxaan rabaa marka hore inaan u mahadceliyo walaalkay shiiqa oo aan duraad isbaranay laakiin aan u sheekaysanay annagoo is naqaanay muddo badan khayr laa siiyo wuuna sharfay in caawa noo yimaado shalaytana masaajidka waan ku dukanay salaada jimcaha ayuu ka sheegay dadka uu sheegay xafladan caawa dhacaysa marka caawana sidoo fiican oo mataqaanaa noo soo qayb galana waa u mahadcelinayaa khayr laa ka siiyo waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo qabanqaabiyaasha xafladan kulli magacyadooda ma wada sheegi karo laa qaar baan ka sheegayaa Zahro walaashay khayr laa siiyo Bakin ubax aadan Nafisa Samatal walaalkay iga weyn OJ Ali Sheego Ali Umar kulligii waa mahadsantihiin khayr laadan siiyo iyo daadiyaha MC-ga qaranka Habeeb oo mahadsan asagana waxaan kaloo mahadcelinayaa asna 2021 kaal asna wuu mahadsan yahay waxaan kaloo rabaa ugu dambeyntii inaan u mahadceliyo walaalka iga yar waa asaga waa igama weyn oo ugu yar yahay yaa Ismaaciil iyo wiilkiisa oo mataqaanaa Zayd oo nooga yimid Portland Oregon asna waxaan ugu bishaareynaya insha Allah tacaala inaan imaan doono Portland soo booqan doono hadii la yiraahdo marka sida sheegay aniga waxaan kala wada mid buugaas mataqaanaa ayaan daafureynay waxaan soo maray meel fara badan waxaan ka soo bilaabay wadan gudihiisa buugga hadda waxaan ka sheekeeyo buugga waxaa igu qaadatay inaan qoro oo aan qorayay 3 sano muddo ku dhawaad ah waa buugga ugu horeeyay aan qoro marar badanna way mataqaanaa waa dhameystir waayo oo waa mataqaanaa inaan joojiyo ayaan ku talagalay oo waa ka cabsaday wax kale ma ahayn markii aan waxyaabo qalday oo aan sadeexay mataqaanaa ku ceeboobin buugga laakiin saaxiibo fara badan iyo dad mataqaanaa qoryaal ah ayaa igu dhiirigeliyay inaan dhameystiro alxamdulillah waa dhameystiray markaan dhamaystirana oo aan koogi ku daafuray muqdisho oo ah meeshaan ku dhashay kusoo barbaaray aniyo Ali Sheego soo sheegana aan dugsiga hoose sare kaga soo baxnay ayaan ku bilaabay inaan ku daafuro maalinta u horeysay markii aan buugga aan daafuranay meel la yiraahdo hall ama maqaayad la yiraahdo Guulasamo idinku way ka dambeysay ayaan ku daafuray habeenkii waxa uu talagalay inay yimaadaan dad 150 qofood ama 200 inay yimaadaan ayaa loogu talagalay laakiin waxaa timid ilaa iyo 400 qofood ayaa meesha timid gudaha way buuxsantay banaanka way buuxsamay habeenkaas ayaa waxaan go'aan gaaray in buugga maadaama lacag ay kaga baxday
daabacadiisa iyo editankiisa iyo qoritaankii lacag aan iga baxday in aan maalintaas ayaan go-aan gaaray inaan qarash ka soo baxo buugga aan ugu mataqaana hibeeyo ama u gudbiyo hay-adda Yasmin Foundation. hay-addaasna si la sheegay oo hadda maanta loogu sheekeynayay waxaan ugu magac daray ama gabadheedii Yasmin Allah xiriirse ayaan mataqaana magaceedii ayaan ku sameeyay 2008 ayaa la aasay waxaan ka bilaabnay inaan ceel ka qodno magaalada Xamar banaankeeda meel baadiye ah marka aragnay dadka inay u baahan yihiin kaalmo dadka inay u baahan yihiin mataqaana in ay ceel helaan kadib ayaan iskuulkii ugu horreeyay ka furnay meel baadiye ah Yasmin hoose dhexe sare oo ilaa hadda taa furan waxaan kaloo oo aan kaalmeynaa ama gacan siinaa ilmaha baahida gaar qaba special needs kids oo ah carruurta aan wax maqli karin waxna arki karin Soomaaliya waxay ahayd wasaaradda waxbarashada iyo dowladda iyo maamulgoboleedka kulli in xoog la saaro ilmahaas in ay xaq helaan laakiin Soomaaliya waxa ka jira waxa waaye dadka ilmaha mataqaana lixda laxad heesta qaba ayaa iskool kaliya hela kuwa kale ma helaan waxyaabaha igu dhiirigeliya waxaa ka mid ahayd sheeka idin sheegayaa buuggan uu ku qoran yahay anoo dibadda jiro oo safar ku maqan ayaa wiil dhalinyaro ah wuxuu ii soo qoray message layirahda Cabdiraxmaan social media igu soo qoray wuxuu yidhi adeer waxaan rabaa inaan ku imaado maku arki karaa waxaan ku yidhi safar baan jiraa laakiin waa imaanayaa markii aan soo laabtay bil kadib ayaan la kulmay guriga ugu imaaday wuxuu ii sheegay in ay walaalo yihiin wiil iyo gabar mataqaana aan wax maqli karin wuxuu ii sheegay in markii iskuulka oo galabta ka yimaado ay walaalihiis oo aan wax maqli karin u yimaadaan soo ag fadhiistaan ay rabaan inay wax bartaan laakiin isaga sign language ma yaqaano iskuul oo geeyna wuu waayey wiilkaas wuxuu jiraa 21 sano jir markaas wuxuu ugu yiri wuxuu bilaabay si walaalihiis ay u helaan waxbarasho ama ay u baro mataqaana wax u bartaan YouTube-ka ayuu galay isaga isbaray sign language markuu bartay wuxuu yiri guriga ayuu galabtii ama habeenkii wiilkii gabadh walaalihiis ah ku bari jiray mataqaana waxbarasho ku bari jiray waxaa soo baxday in walaalihiis oo aan wax maqli karin ay leeyihiin saaxiibo kale oo iyagoo kale ah wiilkii gabadhii waxay u sheegeen saaxiibadood wuxuu yiri within a week guriga galab kasta waxaa imaanaysay 20 ilaa 25 cunug oo wax maqli karin kaligiisu ahaa nin kaloo saaxiibkiisa ah ayuu asana ku yiri adna gacanaysi aan barano sign language wuxuu yiri muddo kadib wuxuu helay 2 macallin oo helay oo yaqaan sign language xaafadda Madiina ayuu ka furay iskuulkaas oo hadda u bixiyay iskuulka Madiina School for Deaf Kids guri ayuu kireeyay oo kira ah oo 4 qol ah wuxuu yiri kuraasta wax lagu baray ardayda wuxuu ka soo qaatay dad ayaa ku kaalmeeyay ganacsiga ku kaalmeeyeen 2 macallin oo helay asaga iyo 2 macallin hadda iskuulkii ayay ku baraan ilma aan mataqaan wax maqli karin oo ilaa ay 56 arday ah guriga kiradiisa wuxuu yiri iskama bixi karo wuxuu yiri maadaama ilmaha ay ku dhigtaan lacag la'aan meel aan keeno qarashka iskuulka ma laha waxaan weydiiyey guri kirada meeqa waa wuxuu dhahay $200 200 kids I mean $200 ayuu heli waayey 60 ardayna wax ku baranayaan anaga halahay baan ku cashana $200 marka anaga hay'adeena hadda faan miga ahaa laakiin waxaan u ballan qaadnay inaan ka bixin doono kirada guriga alxamdulillah haddii ardayda waxba bartaan kuwa kala jira iyagana mataqaana dad kale ay fureen oo lagu baro carruurta aan wax arki karin ayagana waxaan u geynaa carruurta wax arki karin waxay wax ku bartaan farta la yiraahdo braille oo gacmaha lagu aqriso Soomaaliya ma yaalaan marka Kenya ugu keenaa si ay u bartaan ugu bartaan
buugga hadda wuxuu ku qoran yahay af Soomaali hadda waxaa ku socoto tarjumadii oo loo tarjumi doona af Ingiriis waxaa kaloo noqon doona haddii la yiraahdo buugga ugu horeeyay oo Soomaali ah oo lagu qoro farta Braille-ka oo mar dhow soo daabici doono waxaana ardayda aan gacanta siino inay ayadana aqristaan buugga ayaan rabnaa insha Allah tacaala buugga waxaa ku qoran meelihii aan soo maray xilligii safaaradda aan ka tagay 2015 waa ogtiin 2015 markaan ka tagay 2016 waxaan u cararay xilka madaxweynenimada Soomaaliya ma guulaysanin sabab badan oo jiro Soomaaliya ilaahay ha gaarsiiyo xilli la isku doorto qof iyo cod si hadda la ku dooranayo hadda siyaasad inaan galo ma rabo laakiin si fiican ma aha every 4 years waxaan ku laabanaynaa mataqaanaa sidii hadda ay tahay waxaan moodaa rabaad inay tahay lagu laabanayo marka Allah toosiyo waddankeena laakiin markaas kadib ayaan waxaa arkay iyo socodkaan ku soo maray Soomaaliya waxyaabaan ku soo arkay waxaan arkay in qaybta humanitarianka ama gargaarka ay u baahan tahay in la buuxiyo ay aad mataqaanaa u bannaan tahay dabcan kaliya ma buuxin karo saas awgeed ayaan 2016 ilaa hajartaan waqtigeega dhan aan siiyaa hay'adaas iyo gargaarka si aan dadka oo u baahan kaalmada aan u kaalmeyno buugga qaybtiisa hore waxaan kaga hadlayaa waalidkay Allah u xilisto hooyaday waxaa la dhahaa Xawo Mudee Gacal waxay dhimatay anoo jira 9 sano waxay ahayd haddii la weydiiyo aniga qofka adduunka ugu qurux badan waxay ahayd qofka ugu naxariista badan waxaan ka bartay intaan aniga aan xasuusto waxaan ka bartay waxa ka mid ah aan ku qoray buugga xataa in ay dadka baahan kaalmeyn jirtay anagoo yar markaan wax cunayno qadada ama cashada waxaan dhihi jirtay intaadan cunin ciddaas iyo ciddaas oo mataqaanaa masaakiin ah u geeya cuntada marka hore kadib ayaa cuni jirnay waxyaabaha kale aan ka xasuusto waxaa ka mid ah markii aan qabno alabariga ama zabta waa ogtihiin Soomaaliya usually dadka oo qaraabada ah ama dadka la casuumay ayaa wax la siiyaa hooyadii Allah xariise waxyaabaheena bartay ama ka arki jiray waxay ahayd gurigeena guri ama qol ayay dhigi jirtay qolkaas waxa iska la masaakiinta dadka kale markay cunayaan waa inay la cunaan xasha Allah ma gaari karo hooyaday laakiin waxaan isku dayaa inaan wixii aan ka bartay aan apply gareeyo oo aan sameeyo taas oo ah gargaaridda dadka u baahan kaalmada Soomaaliya waxa kale aan ku soo arkay hadayto waxa sheegay ama turka sheegay arinta dib u heshiisiinta dagaalaas aan soo galnay anaga waagiga yareen waxaan ku soo baranay ama aan ku soo barbaarnay qofka deriskaaga ah ama qofka ka weyn waxaan ugu yeeri jirnay adeer ama eedo ama habaryar ama mataqaanaa qof ka weyn ayaa loogu yeeri jiray qabiil ma jirin laakiin dagaal baa dhacay guryaha la iska dhacay waa la isdilay cid isku timid ma laha oo mataqaanaa dibishiir dhaba samaysay waa la shiray shiro badan baa la sameeyey laakiin yaa shiro waa yaa isku imaaday odayaal warlords ahaa iyo kuwa kale waa la yimid qaar waxay noqdeen wasiiro qaar waxay noqdeen xildhibaano noqdeen laakiin dadkii wax laga hadleeyay ama dadkii wax laga dilay lagama hadlin markii aniga aan waddanka wareegayay waan ku jiray socdaalkii aan ugu magacdaad socdaalkii nabadda dibadda aan imid dad baa la hadlaayay ila hadlaayay waxaa iga soo baxday dadka inay rabaan inay hadlaan markii gabadheedii ninka dilay oo ka mid ah dadka dilay ka mid ah 2014 oo u yimid oo aan cafiyey oo aan ka hadlay media ka hadlay aan ku soo qoro social media dad badan baa la soo xiriiray oo raba inay hadlaan kuwana waxay sameeyeen wixii aan sameeyo kale dadkii qaarkood ayay cafiyeen
aniga xasha Allah ma dhahay qof kasta wax laga hadlayay ama qof kasta wax laga dilay ha cafiyo ma dhahay laakiin waxa loo baahan yahay in la helo venue ama meel la isugu yimaado kii wax hadlayay ama kii wax dilay iyo kii kale inay yimaadaan أنا ninkaas markuu hor imaanayay wiil yar oo caato aha oo dhahay lixdii nin gurihiin soo warta kamid aha oo dhahay afar kamid ah way dhinteen mid waa la yahay ana ka haray oo dhahay cafi ani kooy wixii oo aan sameeyay waxay ahayd waa soo qabto ciiji ina jiraan rabay laakiin sheekh soo sheegay alxamdulillah ilaah baa qaboojiyay وسيداي وحنقول هاي أنا وقع فيه لكن إلهي بري وعفس إلهي وديسو أنت أسمعك هذا هاي ووي ويسبودي وحلونا عندنا ما يعني إن التهريف با يهلي والنفس دي لكن waxaa loo baahan yahay in la helo waay in la isku yimaado waay sida sheegay South Africa way sameeyeen Rwanda way sameeyeen mid kale aan ku diray waxa waaye dr Mahi laakiin there's trauma in Somalia waxaa jirto dadka inay wax ka buuxdo maaldahaasa ana active aan ku ah social media will ayaa ii soo qoray message wuxuu joogaa Europe waxaan adeer waxaan rabaa inaan kula hadlaan rabaa muxuu ikra waxaan ku dhahay ii soo qor WhatsApp numberkaada maalinta ku xigta waay wuxuu dhahay adeer waxaan rabaa inaan ku sheekeeyo ma taqaana waa dhageysta marka wallahi wiilka wuxuu hadlayay over 90 minutes wuxuu ii sheekeeyay wixii soo maray meesha soo maray taariikhda soo maray ما تقانا دسك للجوجات قرار دنتي ولا سو حري ما تقانا ولي هذا الشرع مهلين ودومنيا والدكيس ما تقانا قرار دنتي وليس قرار مقن هذه الله بس عقد واد واحد لاي أنا بس كده سنة مكون دمي أو حنا هاي أدري بحقوق قبضنا وحنا أدري ما سنت هاي يعني دقيقة dadka in la dhageysto ayaa fiican dadka waxbaa ka buuxo qofka saaxiibka ah ama oo aad shala joogteen haddii aad maanta weysiin ama aad ku soo wici waayo waxaa fiican in la raadiyo in mataqaanaa dadka nala hadlo ayaamaha dambe waxaa soo batay dadka Soomaalida ah oo isla hadla aan ku cilnaa dhaqtar maahi laakiin in la is dhageysto aad u fiicantay warka waa badi omeena waxaan rabaa inaan sheekada kusoo dhammaystiro warkeyga anoo marka aad iyo aad kaga mahad celinayo labaan ka dhigaa sheekooyinka xogeer waa emotion aan naqday laakiin kaftaan ku daraya xogeer markii aan 2016kii 15kii aan waddanka ku wareegayay ayaan aniga waa ogtiin waxaan jeclahay inaan soo sawiro meelahan tago Soomaaliya waddan waxa qabnaa aad u qurux badan waddan aad u weyn ilaah weyne dadkan way ku yar yihiin xeebaheena waa artay way dheer yihiin oo qurux badan yihiin marka xataa xamar aan joogo waxaan tagaa dukaamanka iyo meelaha yar ma dadka inaan tuso deesanada Soomaaliya dad baa ku nool oo shaqaysta caruur iskuul u aadaan oo wax samaysta marka inaan waxaan jeclahay tuso wanaaga ma taqaan ka jira waddanka waxaan tahay Kismaayo wiilaa saxaabnaha ay kaxeeyey waxay geeyeen maxaa la dhahaa xadka magaalada banaankeeda shaaha qaadanay geed hoostiisa fariisanay aan shaaha ku cabeyn aan waddanka markaa joogo waxaan xisaa macuusa xirtaa iyo shaal baa xirtaa anigoo fadhino ayaa waxaa meesha soo maray wiil mataqaana aar ilaalinay waxaan ku dhahay wiilka u yaray waxaan dhahay adeer waxaan rabaa inaan iskaa sawiro hayuu dhahay adeer kaale wuxuu jiray iskaa sano 10 sano meelaas markaa u tagay saaxiibkaa u dhiibay maxaa lahaa telefoonkeyga waxaan dhahay sawir
markaan su-aalka istaagay ariga uga carara wiilkan waxaan ku dhahay adeer xogaa ariga ii soo dhaweey sidaad kaamarada taa u gasho markas aan u dhawaado ariga sii carara magdan wiilku adeer waxaan maxaa dhacay adeer wuxuu ka cararayaa barafoonka aday barafoon cusub wax cusub iyo mataqaa eriga oriyay moogtahay mar kalena anoo marayo Puntland gaari ayaan ku watay from Garowe ilaa iyo waxaan aaday Boosaaso waa markii ugu horeysay aan tagay ahayd waa markii ugu horeysay aan arko fardo iska daaqayo laamiga dhinaciisa aad u qurux badan laakiin fardaha igama ordin waa isku sawray markaan soconay ninkii gaariga igu waday waddada dhinaceeda waxaan ku aragnay geel daaqayo waddada dhinaciisa anaga waxaan markaan xamar iyo aadi jirnay afgoy iyo balcad iyo markii ari ama lo ay laamiga soo goynayaan horaa loo yariyaa laakiin wax kala arka aniga markii aan u soo dhawaanay geeli daaqayay anigu waxaan sugayay in hoon la yariyo wiilkii gacantu taagay geel waa soo fiiri wuu istaagay ninkii muxuu ahaa ninkii jooga Atlanta maxaa magaysta matan muxuu dhihi jiray true story waa geeli weli waxaan sugayaa aniga inuu hoonka yariyo si uu u carara geelka sidaasuu bii gacantu taagay haddana geela wuu istaagay waa gudubnay xogaa soconay haddana geelaa arnay waxaan dhahay adeer sug anaa gacan taagaya markaa waa soo dhawaanay gacantaa taagay marka geeli ma nuxsanaya laba gacaa gacan taagay wuu istaagi waaye waan fiiriyay waxaan dhahay adeer hay sugayo sug saa taagay dheg wuu istaagay waxaan dhahay waxaan dhahay see waaye wuu soo fiiriyey wuxuu dhahay bowe geela ilaa raxmata ogyahay waa true story waa mahadsantihiin waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaan leeyahay cali rooble cali sheegow sheekh axmed nuur embaashadoorka lafahaantiisa maama xamdi iyo dhammaan martida halkaa iyadu joogto sharafta mudan barnaamijkii aan ugu talagalnay habeenkan caawa isagu ku saabsanaa daafurka buugga danjire inta ayuu noogu egyahay